ay leedahay maalintii rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam oo dhashay mawliidkii waaye. barbaartii baraha bulshada ay sidee ku bariisateen? maxaa ka farxad badan, maxaa ka wanaagsan, maxaa ka xusid fiican in lagu yiraahdo xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam ayay dhalashadiisa tahay inaynu xusno. Soomaaliya waxa ay qaaday tabtii ugu wanaagsanayd oo weligeed taariikhda gasha, taas oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku mutay ammaan iyo sharaf, taas uu maantay bulshadiisa asagoo hogaamiyaha ummadda Soomaaliyeed ah inuu faro in nabiga sallallahu alayhi wasallam dhalashadiisa la xuso misna la weyneeyo. maxaa ka sharaf badan inaynu weyneyno oo kor yeelno dhalashada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam. walaalayaal, haddaad halkaa iga daawanaysaan, horta nabigeena ku salliya sallallahu alayhi wasallam, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. maxaa ka sharaf iyo wanaagsan in maanta lagu yiraahdo nabigaaga ku salli. sidoo kale sir baan halkan idinkugu sheegayaa. sirtaas haddaad samayso uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku kor yeelayo, isla mar ahaantaasna wanaag kasto iyo wax walbood qalbiga ku hayso ilaahay ku fududeynayo. wax kale ma aha, waa salliga nabiga. sababtu waxay tahay haddaad tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta iyo tahliisha aad akhriso, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuuna ku dambi dhaafaa, gurina jannada wuu kaaga dhisaa. balse haddaad nabiga ku salliso, ilaahay baa 10 mar kugu salliya laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah sallallahu alayhi wasallam. yaa ka wanaagsan adoo makhluuq ah khaaliqi ku abuurtay ha kugu salliyo weliba 10 jeer. waad ku farxi lahayd, waana kala badbadan lahayd maanta haddii lagu dhihi lahaa ilaahay laysa ka midlihi shay-un, qof aan ilaahay la misil dhigayna ma jirtee. laakiin haddii maanta lagu dhihi lahaa boqorka Sacuudi Carabiya ama madaxweynaha Soomaaliya aa 10 mar magacaaga xusay, waxaa u malaynayaa farxad darteed inaad dharka tuuran lahayd. ilaahay baa ka wada weyn intaas. ilaahaygii ku abuurtay hadduu maanta ku xuso, yaa kaaga sharaf iyo wanaag badan. weliba inuu ilaahay sii faro malaa'igta uu yiraahdo addoonkeyga wuxuu uu xusay nabiga, adinkana xusa oo weliba xataa magaciisa qaada. yaa kaaga sharaf badan. sababtoo ah waxaan aayaddaas u soo qaadanayo wax kale ma aha. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إلهي يا ملائكتيسا أيا كسليين أذيقنا كسلينايا حدي النبي كسلسو. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أين كوضا صلينو نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمورها حاجوين كاغا وحوال بود إلهي كربتو وقوف ضديا وانا كوهاغاغان شركوغو سو سocotana lagaaga celiya, khayrna lagugu siiya, dambigana lagugu dhaafa, adigana lagugu saliya. maxaa ka sharaf badan? bal maantay madaxweynaha oo ilaahay haleeshiyay in nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam amaantiisa iyo xuskiisa la weyneeyo, miyaanan ahayn wax lagu farxoon la sheer garay? walaalayaal, ila sheer gareeya oo madaxweynaha ila dhageysta fariintaana meel culus gaarsiiya oo dhammaantiin wada sheer gareeya. intii aad sheer garayso oo nabiga lagu salinayo, adiga ajarkaas qayb ka qaadanayo. ila dhageysta madaxweynaha. bishaaro ma doonaysaa inaad soo xajiso, weliba xataa xajkaaga uu noqdo mid ay culimo wehelinayso? hadday jawaabtu haa tahay, waxaa diyaar kula ah shirkadda Ali Business. waxa ay ku sahli doontaa qiimo aad kugu raali geliya. hadday jawaabtaadu haa tahay, waxaa halkaa inala jooga managerka oo faahfaahinta ku siin doono. fadlan videoga ila dhamayso oo soo diyaar garow xajkaaga ama cumradaada. bismillaah, alxamdulillaah, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشركة علي بزنس سولوشن إذن قبطة أديك حجك يو عمرضة أديك وناكسن يو قيمة دمس آد وهو سيسا. هدادو باهنتهين نغصو بوغضة حرونتين وكتالا حافظة إسلي دبقة مستيحة شوبين فاستي فلو A6 أما نغلسو حريرة نمبركا كوكوران شاشدة سي أعماش هذا kugu saxnaato. waxaa ku raaci doonaan culimo ku takhasustay acmaasha xajka iyo cumrada. waa mahadsantihiin. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحن dadka Soomaaliyeed halkan u soo istaagay in aan
كوبوغاديو فرحدة وناقة أي حصوصة مضن أي لا هاي مالنتي رسولك عليه الصلاة والسلام أو دشي موليد كواي ما أنت هي هذا دولة نوال فصحي قانون كدل كان كميتها ما أنت مولود كان معلم فصحينا تاي public holiday وحافظ قرارات الوير هذا marka dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan kuwa shaqada fasaxa ka ah kuwa kalaba waa ugu hambalyeynayna waana ku bogaadinayna maanta oo kale waa maalin xusuus mudan farxad mudan maantii uu dhashay rasuulkeena subhanahu alayhi salatu wasalaam waaye maanta waa maalinta ugu muhiimsan oo inaan soo xasuusana ay tahay akhlaaqiyadkii dhaqankii subhanahu maxaan ku iraahdaa tawjiihintii ummadda muslimiinta uu hayay diintii oo ilaahay kusoo dejiyay rasuulkeena calayhi salaam quraan kariimka ah iyo rasuulka intuu joogay hoggaankiisa soo banaa iyo dadku inaan xusno ka sheekeyno ka hadalno isxasuusino maalin mudan waay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam muddadii oo ummadda uu noolaa adduunyada uu joogay maalintii maxaan ku iraahday waxiga ugu horeeyay uu soo degay qaarul xira ilaa maalintii uu dhimanayo aayadii ugu dambeysay oo quraanka ay ku soo degaysay inta u dhaxaysay dhaqankiisa sidoo ahay inaan intaan akhrino inta taqaano akhrisayna ummadda ay u sheegto ku daysano daba kacno wixii uu sameey jiray aan sameeyno wixii uu dadka ka celi jiray aan ka harno waaye zamankii uu noolay ka duwan aan ku noolnahay duruufaheena gaarka oo hadda jiro wargaas aan jirin aan leenahay laakiin mar walba xusuusta nabiga calayhi salaatu wasalaam zaman kastoo aan joognaba waxay ku leedahay dabaqaad iyo raacid iyo dabagelidii ku leenahay waxaan rabaa marka dadka Soomaaliyeed inaan xasuusiyo u sheego walaalaha siirada iyo maxaan ku iraahdaa taariikhda rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaqaanay in ay walaalaha kale u sheegaan la isdhageysto la maqlo ka bacdina lagu camal falo lagu daysado dariiqiisa suubanaa la maro wuxuu naga rabay aan ka harno wuxuu na farayna aan fartoonaano waa maanta muhiimadda ay leedahay waa maalintaas waa maalin farxad leh waa maalintii ilaahay adduunyadan inuu si kama dambaysa ay u toosto oo ilaahay oo muxuu ahaa awaamirtiisa iyo wanaagiisa uu ku soo degay naxariistiisa ay ku timiday naxariistaas maanta oo kala bilaabatay oo rasuulka dhalashadiisa ka soo bilaabatay inaan ku faraxno inaan qaadano inaan ku daysano inaan daba kacno ayaa waajib nagu wada dhamaanteen dadka Soomaaliyeed meel kasta oo jooga oo hambalyeynaya fursadana laga faa'iideysto fursad tacliimeed fursad xasuusin fursad tarbiya awlaadeena aan ku tarbiyeyn waaye fursadda waxa ay leedahay aan uga faa'iideysana hadii aan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bishaaro iyo bilkhayr daawadayaal shirkadda qaadista xamuulka iyo alaabaha ee Nodsom waxa ay ganacsatada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in meel walba ay dunida dacaladeeda ay ka joogaan ay u qaado alaabaha iyo xamuulka ay doonayaan in guryahooda iyo goobahooda ganacsi loogu keeno waliba qiimo ku raali gelinaya iyadoo la isticmaalayo gaadiidka cirka dhulka iyo waliba badda haddaba ha dhibtoone dheefso oo degdeg oo la xiriir Nodsom adigoo kala xiriiraya taleefanada shaashada kaaga muuqdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin videogan waxaa iga codsi ah inuu gaaro 1 milyan share gareenta 1 milyan iyo ka badan inuu gaaro waayo maxaa kaaga farxad badan xabiibkeena maanta inaad ku salisaan saligiisana la share gareeyo iyadoo waliba xataa madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed oo fariintaasi faraayo maxaa kaaga qiimo badan maxaa kaaga sharaf badan saaxiibada qaaliga videoga waxa codsiga ah inaad noo share gareysaan isla mar ahaantaasna muuqaalka like noo saartaan commentigana nabiga ku soo salisaan sallallahu alayhi wasallam aad iyo aad baa mahadsantihiin ballanteenu waa ku saliga nabiga iyo weynaynta nabiga sallallahu alayhi wasallam